يا كنا جادا توحيا ودفيسا لما نصوت الجيس ويمادا وبالليل كنا جادا توحيا ودفيسا لما نصوت الجيس ويمادا وبالليل ciidanka cirka jamhuuriyadda federaalk ee Soomaaliya General Maxamuud Sheekh Cali Dabla Baylod ayaa maanta wuxuu baaq cabasho ah u diray maamulka gobolka Banaadir baaqaas oo ku aadana in xarunta taliska Bulaacad ay isku bedeshay wuxuuna sidoo kale sheegay taliyaha ciidanka cirka General Dabla Baylod in ku dhawaad muddo 4 sano ah ay ka cabanayeen arintan walina aan wax laga qaban xamar iyo gobolka Banaadir laga soo bilaabo 2015 ilaa hadda maalinba meel soo joogtay in wasaqda ka timaada Digfar ama hordan oo dhan ay xerada ciidanka cirka soo gasho madaxdii kala dambeysay ee gobolka Banaadir mid aanan u tagin ma jiro gudoomiyaha gobolka Banaadir ee hadda cusub mudane Umar Maxamed Maxamuud Umar Finish wadad qoraal ayaan u geeyay markii uu la magacaabay intaana waxaan ka cabanaynay wasaqda ka imaanaysa magaalada Xamar oo xerada ciidanka cirka soo galayso oo ciidanka iyo xaasaskooda iyo caruurtooda dhibaatada ku haya waxa la yiri waa maareynay wax la maareeyo male wixii oo dhan waxa lagu soo daayay xerada ciidanka cirka annagoo og xaaladda hadda jirta iyo qatarta caafimaad oo jirta ayaa waxaan cabasho heer sare ah ka muujinaynaa dhibaatadana haysata oo xeradii ciidanka cirka ay wasaqdii ama qashinkii switchki ka imaanaya magaalada Xamar ay ku dhex jiraan ay soo galeen ciidankina iyo xaruurtooda iyo xaasaskoodana ay dhibaato ku hayso gobolka Banaadir saaka u dambeysay 4 goor ama 5 goor baan telefoon diray cid iga qabanaysana male cid tixgelinaysana male sidaa daraadeed waxaan codsanayaa waan codsi dheer ku jeedinayaa in arintan wax laga qabto oo dadka xerada degan ciidanka kala duwan ciidanka cirka iyo ciidanka xoogga ama ciidanka dhulka gaadiidka muusikadii xaasaskoodii caruurtoodii saraakiisha ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ee xerada ku jira qatar ay ku jiraan arinta waxaan codsanayaa in si degdeg ah wax looga qabto oo si aan kala har lahayn wax looga qabto gaar ahaan maamulka gobolka Banaadir waxaan si xushmad iyo qadarin leh uga codsanayaa in arintan wax laga qabto arintan ma ahayn inay raadiyaha gasho ama aan ka hadlo ee waxay ahayd in la xalliyo wada hadal lagu xalliyo laakiin waa ka quusanay dariiq kastaan maray meel kastaan la hadalnay si kastana waxba waa ku suura gali waayeen sidaa daraadeed waxaan mar labaad mar saddexaad codsanaya in cid kasta cidii wax ka qaban karta in arinta wax laga qabto oo ciidanka iyo xaasaskooda iyo caruurtooda la badbaadiyo Damiin Cabdirasaaq Aadam Bulsho TV magaalada Muqdisho كنا جادا توحيا ودفيسا لما نصوت الجيس ويمادا وبالليل كنا جادا توحيا ودفيسا لما نصوت الجيس